xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi Brazil ayaa waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Lula da Silva aanu u tartami doonin doorashooyinka dhacaya bisha fooda inagu soo haysa waxaana lagu bedelay ninka lagu magacaabo Fernando Haddad. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii maxkamadda sare ee waddankaasi Brazil ay ka mamnuucday madaxweynihii hore inuu u tartamo doorashada dhacaysa sababta oo ah waxa uu ku jiraa xabsi kaasoo uu ku qaadanayo xukun la xidhiidha musuqmaasuq. taageerayaashiisa ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dhibaatada haysata ay tahay kuwo siyaasadaysan isla markaana cadaalad darro ah. dadka qaarkood ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Mr. Lula uu yahay siyaasiga ugu shacbiyada badan marka laga hadlayo doorashooyinka hase yeeshee inuu xilkan u tartamo ayaa ah hawl aad u adag sababtoo ah qofkii reer Brazil oo ay maxkamaddani ku rido xukun isla markaana ku guuldareysan racfaanka waa ay adag tahay inuu u tartamo xilka madaxweynenimada. maxkamadda oo ku taalla waddankaasi Brazil ayaa horaantii bishan madaxweyne Lula ka hor istaagtay inuu u tartamo xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi waxaana xisbiga uu ka tirsanaa la siiyay muddo 10 maalmood si ay u soo magacaabaan qofka ku matali doona doorashada xigta. saraakiisha sarsare ee xisbigaasi shaqaalaha ayaa ninka lagu magacaabo Mr. Fernando oo ah duqii hore ee magaalada São Paulo u soo xushay inuu xisbiga ku matalo doorashadaasi waxaase aad u yar waqtiga ka hadhay doorashada. qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga ayaa iyagu isu soo bax ballaaran ku qabtay waddankaasi Brazil isu soo baxaasoo ay ku dalbanayaan in la sii daayo madaxweynihii hore ee waddankaasi Lula da Silva. inkastoo Mr. Lula uusan ka qaybgalaynin doorashada ayaa haddana waxa aan la dafiri karin taageerada xisbigiisu uu ku leeyahay gudaha waddankaasi Brazil. Mr. Lula ayaa hadda ku jira xabsi ku yaalla waddankaasi isagoo lagu xukumay xabsi 12 sano waxaana loo haystaa inuu lacago laaluushah ka qaatay shirkad ka howlgasha waddankaasi Brazil. dhanka kale Mr. Lula oo isagu beeniyay isla markaana dhinac isaga fogeeyay eedeymahaas ayaa sheegay inay tahay mid la doonayo in lagaga hor istaago inuu awoodda mar kale dib isugu soo taago dalka. Saciid Axmed Tamreyse wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.